واجب جماعين تكوجد تابانا في عنو جماعات كحاضرته هنا ضدك بريين واجب واد حوكسته ومضوا هنا فايد صوصار طرديرات هنا صوصار تنا وحلو باهي هدي إنه دهنا ومضوا أردمي هورديدو ورديجا هقاضته هورديدو هي أنت وغير اللغون نولان كرون مركب ساق بطفريسو وضدكم مركب يو علم يان دختر لبران ويان فلك لبران ويان حساب لبران ويان هندسة لبران ويان كيمستري لبران ويان فيزيكس لبران وحاصل دمي وادون كفاني جابك تعلقات هي نتيجة ما حين قرصة وحصابة حيسا أمة دمان تد فقراء دمان تد جاهل كأن الله شأدون سيء ومامشه دمان تد بقطة ووحدة ويان لوهينين يعني ضدك كدول نول باراسايت سبا صوابة حية ضد بشرية لك كدول نول وحلوبة هي وحويان واعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم بالله وكيف تعد هداد جهل يبقين وضحيه كيف تعد هداد جهل يفقر وضحيه ساشي شويدين تلي وحويان مركا نوعا هدي الله نولاده حنون كافافيو عدة ويسلو هلي ماي جهل كافافيو عد نلاشا هرومر يسلو هلي ماي نلاشا دنبا آسميسا مسلمين تيهوري وحي عانك كوا هايه دادك نجد قلدنو فامي وهالمسألة بالمسألة دا ودكتاقا وحي هايين وحصوصار دادك وغبضا وحي كلوا هايين استهلاك دادك وغير لبدا مسألة ما يسلا فامي كرسا شقل قفتو داد شقايو انا قونين عاجزك وحصوصارا لكن مركا ينقطك راحي تيجادا وحي هايين دادك وغير يساقو مليونيرة أيها دو هيل بيرا شيلان عنيسورن جريار ما كان كي آخرك وإدارية إذن ما يهين وحلعان وحيان يدو قعنتو دا كجرتانا قيمة بدن السمينين إنك الله بمشكلة ماشا طالله داد بديري آخران كسعنا الدون كبا ومباهنين دبتنا ونقال كهوصنا راضي إيوه إن آخرة با إلا ودي وطريق الدنيا راضعينينا دبتنا الدون كانوا سكبر برسارينا مالها دول وكل بسياحة حتى يداري راعقارن ينتا نلاش بينتا مودا آخرة إلا ودي لكن لبدا بعكس القودي هاي صحابة دي نبقوا عليه الصلاة والسلام waxaa hayn wax soo saar marka la tago dadka ugu juhdiga badan le muntajiina marka ay noqoto conceptionna waxaa hayn dadka ugu yar juhdiga xaqiiqigiina waa ka culama alhadith rakamida oo waaweyn oo salafkiyaba waxay oran jireen nin kamidaba wuxuu yiri ardadiisa isagoo la dardaarmaya wariyadeen anigu walaalahay baan ku kornoolo wax la cunaa buu yiri idinka waxaan idin kula talinay inay xoogsadaan buu leeyahay inta yartiin xoolo dhaqda waa nin muhaddisiinta waaweyn la yaqaan kamida muhaddisiintu waxay caayi jireen ninka dawladda lacag ka qaata ama se xadiiska ku xoogsada muhaddisiinta qaar baa jiray lacag ma haysanin dadana waxay oran jireen idin sheegay in xadiiska idinka wax la siiyo mooyaan marka lacag la siiyo ayay in xadiiska sheegi jireen marka ahlul xadiiska markay ka waramayaan ragay maagaan bay ku jiraan oo yiraahdaan xadiiskoodii bay ku xoogsadeen idan waxay nici jireen hatta inay diintu wadiifo ka noqoto wala professor banay wala ustaad banay wala waxa ka banay malihi ma banaana laakiin waxa aan tilmaamaya iyaga aragtidooda waxay ahayd in wixiisana xoogsado cidina aanay u manna sheegan marka la dawlad wala shicib wala qofna aanu u manna sheegan isagoo gacantiisa wixiisa ku haysta inuu isagu wax sheega hadana inuu dadka uu mana sheegto cilmigiisa waa aakhira iyo ajar ku helo muuminka xaq ah marka waxa weeyaan waa adduunka ka intaajkiisa iyo wax soo saarkiisa uu ugu sareeyo istihlaagiisa iyo qooqiisuna uu ugu yar yahay oo hadaa see loo oranayo xoolaha badan la shaqeynaya islaamkiisa iyo diintiisa iyo dadnimadiisa ku horumarinaya masaajidaynu maanta raadacayna waxaynu dhisay laana waayo waxaynu soo saarayba waynu ama muntajiin baynana ahayn ama mustahlikiin baynana labadubana waa waxa fiicnay muntij noqo mustahlikina noqon wax soo saar waxna hay si aad nolosha u barbaariso oo horumariso westrankayn maanta joogna carruurteena islamic school baynu laana maxaynu ugu weynay ama waxbayna soo saarin oo caydaynu ugu filaatay ama wixaynu soo saaraynu liqnayo wala boobna labada goorba waa khasaaraynu taaganimo waxaynu u baahanay marka noloshu say u horumarto faa'idkan baa loo baahay halena nabigu kaleey salaatu wasalaam markuu madiina yimay masaajidka dhisay saxaabadiisi wuxuu tusay inay suuqa galaan oo meelaha xoogsadaan suuqu nabigu u dirayay yaalaha yuhuud baa lahay yuhuudda la booba nolosha la xoogsada lala meeshu lahaa cabdiraxmaan ibn abdulluna على السوق وسوق اليهود سوق بنو قرقاع بالجي ميل كلا لما جايين waxaan rabaa marka dariska macnihiisu wuxuu ku koobay cinwaankii la yidhi wuxuu ahaa calaaqada dunya bil aakhirah adduunku aakhirah xidhiidhku la leeyahay waa maxay xidhiidhku la leeyahay waxa weeyaan xiska qofka muslimka ee dhabta ah adduunku waa dariiqii aakhirah loo marayay haday cibaado tahay nolosha dhan buu cibaado warka xoogsiga xalaasha ay cibaadadu ka mid yihiin marka dambe ilaahay dartii loo bixiyana cibaadadu ka mid yihiin kafaafka aad noloshaada adigu dabari kartaa cibaadaday ka mid tahay bariyado aad iska dayso social wax weydiisan cibaadaday ka mid tahay inaad isku fillaata cibaadaday ka mid tahay qofka muslimkii inuu noqdo model lagu daydo cibaadaday ka mid tahay qudwa xasana inaad noqoto cibaadaday ka mid tahay in marka tusaale la soo qaadanayo aad adigu noqoto qofka modelka xumaha loo qaatay cayda ku nooli diin yariday ka mid tahay bal dadkii aan rabay inaynu model u noqono haday iyaga
iyagii adiga ku yasaan waa diin yari haddaynu inagu noqonno dadkaba dadka diinta ka hor taagan idan waxaan rabaa inaynu u fahmno waxa weeyaan adduunka ha jeclaanin gacantaada ha galo laakiin yuu qalbigaaga geli adduunkuna ha noqdo dariiqa aakhire lagu gaadho wallahu aclamu billahi tawfiiq wasalaamu calaykum